Tani waa Sylvia oo hadda ah 13 jir, iyada oo 12 jir ah ay qaado uur, waxayna haysataa wiil 2 bilood jir ah oo lagu magacaabo Raoul. Waxaa intaa u sii dheer in Sylvia aysan garanayn aabaha wiilkeeda oo ah mid ka mid ah labadan wiil oo ay la samaysay Google Earth. Tani waa 15 jir lagu magacaabo Justin, kana waa saaxiibkiis Gerard oo 16 jir ah. waxaad muuqaalkan ku ogaan doontaa aabaha wiilka yar iyo sida ay sheekadan u dhacday ee ku soo dhaw mawduuceena maanta. soo dhaw mar kale, magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. sida aad ku soo daabatay hordhaca, maanta waxaan ku wadaa mawduuc ka duwan mawaadiicda aan caadi ahaan ku soo gudbiyo janaalkan. ku noolaanshaha Yurub iyo Mareykan waa riyada inta badan dhallinyaradeena, sababtuna waa fursadaha yaalla awgeed in ay horumar iyo nolol adduun ka sameeyaan. laakiin fursadahaas waxaa barbar socda dhinacyo badan oo madow oo kaliya ay fahmi karaan dadka ku nool, weliba familka ku ah. inta aan u gelin sheekada gabadhan, aan wax yar faahfaahin ka bixino barnaamijkan The Mauro Show ee aan ka soo qaatay sheekadan. barnaamijkan oo ah mid caan ka ah guud ahaan dunida, gaar ahaan dalka Mareykanka, ayaa inta badan waxaa lagu ogaadaa waalidiinta carruurta ku dhalata sharci darrada iyaga oo sameeya DNA test kadibna showgan ku soo bandhiga. ninkan kuu muuqda oo lagu magacaabo Mauro Povich ayaa ah aasaasaha iyo daadiyaha barnaamijkan. My name is Sylvia and I got pregnant at 12 years old. I'm 13 years old and I have a 2-month-old baby. I'm so young I wasn't supposed to have a kid. It's so hard being a kid and having a kid. gabadhan oo sidaan soo sheegnay lagu magacaabo Sylvia, iyadoo 12 jir ardayd ah ay qaado uur sharci darro ah. waxaaba taa ka daran, ma garanayso aabaha wiilkeeda oo waxa ay Google Earth la samaysay wiilal ay iskuulkooda dhigan jireen. I don't know who my baby's father is. I didn't have a father growing up and I want my baby to have one. gabadhan oo iyada ku kortay aaba la'aan, dareensanna xanuunka ay leedahay, ayaa sheegtay inaysan wiilkeeda la rabin inuu ahaado aaba la'aan, waxayna rabtaa inay kala ogaato cidda ah aabaha saxda ah ee wiilkeeda. labadan wiil ee idin muuqda midkood ayaa ah aabaha rasmiga ah ee wiilka yar, maadaama xilliga ay uurka qaaday ka hor ay Google Earth la samaysay labadooda. Sylvia rabitaankeeda waa in Justin uu noqdo aabaha wiilkeeda, sababtoo ah marka laga soo tago da'diisa oo yar, waa wiil naxariis badan, noqon karana aabo, waa sida ay iyada aaminsan tahay, halka aysan marnaba jeclayn in wiilka kale ee Gerard uu noqdo aabaha wiilkeeda, sabab la xiriirta inuu yahay wiil aad u xun, isla markaana aan qaadi karin mas'uuliyadda aabanimo, waa sida ay sheegtay. waxaa markaan masrax la keeni doonaa labadii wiil oo jooga masraxa qaybtiisa dambe si su'aalo kooban loo weydiiyo, kadibna waxaa lagu dhawaaqi doonaa natiijada. How did you feel that when you found out, Gerard, you could be the father? I was scared at first, and then I found out that Justin could have been a father also. And then when he showed me the picture, it looked nothing like me. How about you, Justin? What do you think? I didn't think it was mine because she had always said that it was Gerard and Gerard, but then after the baby was born, she just said, all of a sudden she said it was me. ugu dambeyn waxaa la gaaray waqtigii la soo bandhigi lahaa natiijada qofka ah aabaha wiilka, taas oo lagu ogaaday baaritaanka DNA-ga. When it comes to 2-month-old Raoul, Justin, you are not the father. When it comes to 2-month-old Raoul, Gerard, you are the father. Sylvia. sidaad aragtaan, jawaabta DNA testiga waxay sheegtay in Gerard uu yahay aabaha wiilka. waxaad sidoo kale aragtaan in Sylvia aysan ku faraxsanayn in Gerard uu noqdo aabaha wiilkeeda, sababtana waxaan ku soo sheegnay muuqaalka dhexdiisa. waxay ahaataba, ugu dambeyn daadiyaha barnaamijka wuxuu ku qanciyay labadoodaba inay ogolaadaan natiijada, sidoo kalena ay qaadaan mas'uuliyadda mid walba ka saaran wiilka yar. mawduucana maanta intaas ayuu ku egyahay. haddii aad soo gaartay halkan, muuqaalka like saar waa haddii aad ka heshay, sidoo kalena nagu soo biir oo subscribe da channelka haddaadan ka mid ahayn asxaabta nagu xiran. mahadsanid. inta aan kulmi doono mawduucina xiga, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.